shirka nabadeynta beelaha walaalaha ah ee shaqaqadu ku dhex martay koonfurta Sool ayaa galay wajigii maxkamadda loogu garqaadayo kaasoo ay garwadeen ka yihiin guddi culimaa u diina waxaana goobjoog ka ahaa isimada dhaqanka waxgarad wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland oo hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo ergada labada beelo Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo ka mid ah isimada dhaqanka ee gobolka Sool ayaa madasha ka soo jeediyay dardaaran iyo wacyi ku saabsan in la isu tanaasulo isagoona ku duceeyay wax la koobi karo ma idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatu kaannahu waliyyun hamim bi rabbi subhanahu wa ta'ala qofkii xumaatada ka geystay walaag ugu bedel xubbiga iyo kalgacalka qofka ay dhaxmara wax la koobi karo ma wax la soo koobi karo ma waxa taasna badana sameeyay qof iimaan qalbigiisu ku yahay qof raba ummadan inay kala bogsooto qof raba waxan inay go'aan qof raba ma taqaanaayay meeshii xumaan tahay in walaag ku bedelo arrimaha inoo yaala maanta oo arrimahaas iib baa yaala dhaawac baa yaala sheegasho kala taala dhibaatooyin kala yaala laakiin intiina waa inta hore inay waxaas ay walaag ku bedesho Dr. Sheikh Ahmed Jaamac Ismaaciil Mir oo ah gudoomiyaha guddiga nabadeynta ayaa shaaciyay inay bilaabantay wajigii maxkamadda loogu garqaadayo labada beelood ee walaalaha ah maanta oo bisha May ay tahay 28 sanadka 2017 waxaanu bilaabaynaa maxkamaddii lagu kala garqaadayay labada beelood ee Khayr Cabdi iyo Bahar Same halka waxaa fadhiyay ergooyinkii ay soo xoreen iyagu beel waliba 330 ergey oo uqaal iyo odayaal iyo culmo bale bay soo xoreen waxay diyaar u yihiin wixii dhacay inay ka taloobaan ay diyaar u yihiin wixii dadka kala galay si hufan oo turxaan la oo walaalnimo leh oo helnimo leh loo dhameeyo culmadu halkan fadhida maxkamadda qaadaysay waxa fadhiya isimadii haddii beed mahayo iyo uqaashi oo xaajada qaybahooda ku leh waxa fadhiya dawladdii oo insha Allah ta'ala hawsha talaabo la socota ilaahay waxaanu ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu hawsha sida ugu qiimaha badan ee ugu wacan ilaahay inuu dhameystiro wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Falatoon iyo sidoo kale wasiiru dawlaha madaxtooyada Soomaaliland ayaa hadal kooban halkaasi ka soo jeediyay maanta waxaanu daahfurnay shirkii 66kii labada beelood oo uu furmay oo aan ku wareejinay daadihintii shariicada islaamka oo ay culimadu la wareegtay doodeedina si wanaagsan ay u dhacday oo u bilaabantay labada beeloodba waxaan ku tahaniyadeynayaa sida quruxda badan ee ay u dhigeen ee doodoodu ay tahay waxaanan leeyahay halka amarinaysaan ina kala sii dhawaataan ayaanu ilaahayna idinka baryaynaa waxaanu idin sheegaynaa idin la socodsiinaynaa shirkii aanu halkan u joognay arrintii nabadeynta ee labada beelood ee halkan koonfurta Sool ku dagaalamayay heshiisiintoodii meel aad iyo aad wanaagsan bay maraysaa marxalad wanaagsan bay soo gaadhay waxa la gaadhay heerkii ay ku dhaweyd in wax la kala xukumo oo wax la kala yiraaho oo qaybihii u horeysay ee nabaddu ku xidhmaysay ayaa la galay si wanaagsan bay iyaguna uga soo qayb qaateen niyad wanaag bay muujeen yuhun wanaagsan bay muujeen iyo inay mataqaanaa nabadda diyaar u yihiin calaamaadka iyo sida ay u doodeen ama u hadleena way ka muuqataa inay ka dhab tahay intayadii hawsha u joogteena si midaysan baanu ugu dul joognaa oo uga tashanaynaa insha Allah waxaanu rajo weyn ka qabnaa inay dhaqso arrintaas soo afjaranto oo nabadii loo xidho loo gaadho السلام عليكم مولود علي ستار تي في لا سنة